بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قدوميها شركدونك اللبانة مرتي شرفتا بعض الصحافة مدنياري مروين بوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومي مدنيار anigoo ka wakiila wasaaradda horumarinta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuurka qaranka qodobkiisa 55aad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda ee xeer lambar 5/2016 qodobkiisa 5aad waxaa ii sharafa inaan maanta taariikhdu tahay 27 bisha 12aad 2021 u soo gudbiyo golaha wakiilada miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022 oo ah miisaaniyaddii 31aad ee qaranku yeesho. mudane gudoomiye mudanayaal, miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay laba buug bay ka kooban tahay. buugga miisaaniyadda dawladda dhexe iyo buugga miisaaniyadda dawladaha hoose iyo hay-adaha madaxa bannaan. ka la isu geeyo labada buug waa ilaa 350 bog bay noqonayaan. buugga miisaaniyadda dawladda dhexe guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood. qaybta koowaad waxay ku saabsan tahay xaaladda dhaqaale ee dalka iyo dunida ee hadda iyo sanadka soo socda 2022. qodobka labaad waxay ka kooban tahay siyaasadda iyo miisaaniyadda oo kooban. qodobka saddexaad waa mashaariicda miisaaniyadda ku jirta. qodobka afraad waa dakhliga iyo kharashka miisaaniyadda oo faahfaahsan. qodobka shanaad waxay ka kooban tahay bogga heed waliba ku leedahay miisaaniyadda. haddii markaan miisaaniyadda u gudbo, mudane guddoomiye, waxay dhan tahay 2,410 bilyan oo Somaliland shilina. waxay miisaaniyaddii 2021 ee sanadkan dheer tahay 11%. marka lagu daro miisaaniyadda dawladda hoose oo dhan 529 bilyan iyo miisaaniyadda hay-adaha madaxa bannaan oo dhan 277 bilyan iyo mashaariicda aynu xogtooda hayno ee hay-adaha caalamku ay maalgeliyaan oo dhan 230 bilyan. waxay miisaaniyadda 2022 wadar ahaan dhan tahay 3,447 bilyan, taasoo miisaaniyaddii sanadkan 2021 ka badan 17%. guddoomiye mudanayaal, miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay dakhli iyo kharash. haddii aan dakhliga ku bilaabo, dakhliga miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadka 2022 waxaa la filayaa in 8% amba 1 trilyan amba 1,850 bilyan, hadda waa 1 trilyan iyo 850 bilyan ka imanayaan kastamyada. 4 kastam ee ugu waaweyn ee dakhligu ka soo xiroodo lana filayo inuu ka soo xiroodo sanadka soo socda waa kastamyada Berbera iyo Kalabayd iyo Zaylac iyo madaarka Hargeysa. waa 4 kastam weyn. halka 20% amba 488 bilyan laga filayo inay ka yimaadaan cashuuraha beriga. 4 magaalo ee cashuurta berigu badi ka timaada waa magaalada Hargeysa, magaalada Berbera, magaalada Boorama iyo Burco. labada soo haray 100% waxay
u badan yihiin ruqsado liisamo iyo ganaaxyo soo mara hay-adaha dowladda ee kala duwan. guddoomiye haddii aan u gudbo dhinaca kharashka, miisaaniyadda 2022 boqolkiiba 350 amba 104 bilyan wuxuu ku baxayaa mushahar iyo gunno. boqolkiiba 24 amba 534 bilyan wuxuu ku baxayaa hawl socodsiin amba alaab iyo adeeg. iyo hantida raagta. boqolkiiba 8 soo haray waa kharashyo kale oo ay ka mid yihiin kaalmooyinka daryeelka iyo lama filaankiiyo wixii la mid ah. mudane guddoomiye, odoroska iyo meelaynta miisaaniyadda 2022 waxay ku fadhidaa 3 qodob oo kala ah: geedi socodka kororka miisaaniyadda ee soo jireenka ah, xaaladda dhaqaale ee sanadkan 2021 iyo odoroska xaaladda dhaqaale ee sanadka 2022 iyo siyaasadda miisaaniyadda oo ku xidhan qorshaha qaranka. haddii marka aan ku bilaabo geedi socodka miisaaniyaddu sanad walba way korodhaa. miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadkii 2018 waxay korodhay boqolkiiba 9 marka loo eego siday ahayd 2017. 2019 waxay korodhay boqolkiiba 6. 2020 waxay korodhay boqolkiiba 15. 2021 waxay korodhay boqolkiiba 3. sanadkan soo socda 2022 waxaa la filayaa inay korodho amba ay korodhay boqolkiiba 11. dhinaca dhaqaalaha, mudanayaal, sanadkii 2000runtii dhaawac uu gaarsiiyey safmarka iyo siyaasadihii ka tartiibmay. dhinaca siyaasadda haddaan u gudbo mudanayaal, miisaaniyaddeena 2022 waxaa hogaaminaya siyaasado iyo himilooyin ay ka mid yihiin isku dheelitirka dakhliga iyo kharashka, xakamaynta sicir bararka, ilaalinta qiimaha shilinka, xoojinta amniga, qabashada biyaha roobka, ku talagalka abaaraha, kor u qaadidda adeega caafimaadka iyo waxbarashada, dhiirigelinta wax soo saarka, ilaalinta deegaanka, xoojinta raadinta ictiraafka, dhismaha kaabayaasha iyo qabsashada doorashooyinka. mudanayaal marweyn, haddii aan ku bilaabo isku dheelitirka miisaaniyadda.
miisaaniyadeenna lama kabo oo cid ajnabi oo ina kabtaa ma jirto ama dawlado ina kabtaa ma jirto deynna uma qaadano si aynu u daboolo ku talagal isdhin himiladeennu waxa weeye dakhligeenna iyo kharashkeennu inay isku sarjarmaan oo isleekaadaan haddii kharashkeennu dakhligeenna ka bato oo aynu isticmaallo waxaanayna soo gelin waxay keenaysaa sicir barar iyo qiimaha shilinka oo hoos u dhaca haddaan iskaga ka sii wado sicir bararka wax ka taabto 4 sannadood daruuriga sida bariiska iyo daqiiqda iyo sonkorta 10% cashuurta laga dhimo haddaan u gudbo qiimaha shilinka waxaynu sidoo kale ku guuleysanay inaynu ka ilaalino in qiimaha shilinkeenu hoos u dhaco 3 sannadood ee u dambeeyay wuxuu qiimaha shilinku uu ku fadhiyay inta u dhaxaysa 8400 iyo 8600 halkii dollarba waxaana naga go'an in aanu ku ilaalino safarka ku ilaalino sarifka sanadka soo socda 2022 inta u dhaxaysa 8000 ilaa 8600 lacagtana la gaarsiiyo dalka oo dhan amniga mudane gudoomiye mudanaya haddaan amniga u gudbo waxaa mar walba inoo mudan amniga sanadkan si gaara ayaynu ugu xusnay miisaaniyadda waxaynu mushaharka ciidanka kordhinay 20% isla markaana waxaynu xoojinay tiradiisa iyo tayadiisa iyo saanadiisa guud ahaan waxa hay'adaha amniga sanadkan loo qoondeeyay miisaaniyad dhan 860 bilyan oo tii sanadkan 2021 ka badan 13.4 والعاب كله دولي لا بقول مليون أو دولار بين عبيه ويسناو حيابين نومضن أمنية مركز لقي
boqolkiiba 12.5 waxaana la gaarsiiyey 63 bilyan oo Soomaali shilin maadaama cilmi baadhistu ay muhiim u tahay wax soo saarka dhinaca beeraha waxa laga dhex saaray tijaabada wasaaradda waxa loo sameeyay guddi gaar ah oo boora inay ka taliyaan si uu madax bannaan ay u maamulaan dhiirigelinta wax soo saarku kuma ee ka miisaaniyadda kharashka miisaaniyadda oo kaliya ee waxa cashuur dhaaf loo sameeyaa loona sameyn doonaa qalabka beeraha qalabka kalluumaysiga iyo qalabka agabka iyo wixii ceerin ee warshaduhu isticmaalaan waxaanu sanadkan 7 bilood ee ugu horeeyay waa January ilaa bishii July sameynay cashuur dhaaf dhan 44 milyan oo dollar oo lagu dhiirigelinayo wax soo saarkii warshadeynta dhinaca deegaanka maadaama dhaqaalaheenu ku xidhan yahay deegaanka waxaa miisaaniyadda wadaaga deegaanka loo kordhiyay 9% waxaana loo qoondeeyay qadar dhan 35 bilyan waxaa sanadkan wadaaga ku cusub wasaaradda horumarinta reer miyiga waan haru jirin wasaaraddaas oo xiriirin doonta hay'adaha kala duwan ee la shaqeeya reer miyiga wasaaradda deegaanka ee hore iyada laftigeeda waxa la ballaariyay xaytaamka shaqadeeda oo waxa lagu daray isbeddelka cimilada marka imka waxa la yiraahdaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xagga aqoonsiga mudanayaal iyo marwooyin gudoomiye markasta aqoonsigu wuxuu inoo yahay amba inoo ahaan jiray waxyaabaha inoo mudan haddaba si aynu ugu guulaysano hankeena aqoonsi waxaa sanadkan miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka loo kordhiyey 20% waxaana la gaarsiiyey 58 bilyan ayaa la gaarsiiyey xagga doorashooyinka gudoomiye geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxay ku jiraan waxyaabaha inoogu mudan mar kastaba sanadkanna bishii May 31keedii waynakii galay doorasho isku sidkan doorashada waxay naga baxay lacag badan oo gaaraysa ilaa 20 milyan lacagtaasi waxay ka timi ku talagalay muddo 4 sanadooda oo aynu meel wax u dhigi jiray sanad walba sanadahaas oo marka laga soo bilaabo 2018 ilaa 2021 taas bay noo suurtagelisay inaynu